guud ahaan deegaanada Somaliland waxaa si rasmi ah looga xusayaa munaasabadda xuska toddobaadka naasnuujinta ilmaha. magaalada Burco ayaa iyana ka mid ahayd magaalooyinka sida weyn looga xusay toddobaadka naasnuujinta ilmaha. munaasabadda xuskan ayaa waxaa qabsoomideeda iska kaashaday wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer iyo hay'adda Save the Children. waxaana munaasabadan ka soo qayb galay isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Aadan Cilmi Diiriye Aadan Malay, barasaabka xogeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo iyo Caasha Cali Qabiile oo ka socotay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer. waxaana dhammaantood ku dheeraadeen ahmiyadda ay u leedahay naasnuujinta ilmaha. waxaynu halkan isugu nimi waa wax sharci ah oo markaa Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala quraankiisa inoogu sheegay naasnuujinta. nabiguna sallallahu alayhi wa sallam inoo sheegay, dhakhaatiirtuna ay nagu irshaadiyeen, taasoo ay ku jirto nolosheenna iyo caafimaadkeenna iyo ubadka aynu dhalayno waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu talagalay. haddaynu dib u milicsano nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, waxaynu ognahay carabtii jaahiliga markii aanay diintu soo degin muhiimadda ay leedahay nuujintu. nabiga sallallahu alayhi wa sallam dhowr dumar ayaa nuujiyay, waxaana loo diray waliba baadiyaha iyadoo oo markaa caafimaadkiisa aad iyo aad loo ilaalinayo. markii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu diinta soo dejiyayna waxa uu ina faray inaynu nuujino oo hooyada ay nuujiso ilmaheeda 24 bilood. marka waxa weeyaan carruurteena inaga ayaa gacanteena ku dila, inaga ayaa cudurka u soo iibina, inaga ayaa carruurteena maskaxda ka dila. waayo waad aragteen iminka carruurteena inta badan naxariis ma laha. waa kuwa moobilada dadka ka qaadaya mindiyaha daraya, bal haba ka qaada moobilka muxuu mindida u daraya. waxa weeyaan naxariis la'aan. naas baanu jaqin, silic buu ku koray, darxumuu ku koray, waalidkii baan dan ka lahayn. sidaa aawadeed bay u timi naxariis la'aantu. haddaba inagu maadaama aynu mulisooyinahay waynu ognahay faa'iidada naasku u leeyahay hooyada iyo ilmahaba. ma dheertu iyadoo ku jirta inay hooyadu naaska nuujiso, waynu ognahay faa'iidada ay u leedahay. ilmuhu markaa waxaa halkaa ugu jira nafaqooyin badan oo naaska markaa ibta soo saaran, kuwaasoo ilmaha korinaya oo u diidaya fuuqbaxa hadhow, hooyadana makaanka oo ururaya iyo madheerta oo soo dhaafaysa oo aanay hooyadaasi dhiigbax yeelanaynin. waynu ognahay naaska caanaha ku jira waxay ka kooban yihiin macdan, biyo iyo caano. sida u soo kala horeeyaana waynu ognahay. waxa ugu horeeya waa biyaha. hooyooyinka Soomaaliyeed waxay siiyaan naaska ilmaha inta u horeysa, marka ilmahaasi biyaha nuugo ayay naaska ka qabtaan oo kala siiyaan. marka biyihii uunbu ilmihii nuugay, caanihii iyo macdantii nuugaadi. midda kale waxaan doonayaa marka MCH-da la idinku yimaado hooyooyinka inay naasnuujinta u sheegtaan markay uurka leeyihiin iyo markay umulaanba. naasnuujintu waxay faa'iido u leedahay qaranka, waayo qof caqli leh oo xagga waxbarashada ku fiican hadduu dhasho waxa laga yaabaa inuu bulshada wax u taro. marka dadka madaxda noqonaya hadday noqoto wasiiro iyo hadday noqoto madaxweyneyaalba wax weeyaan dadkan weeyaan. marka waxa muhiim ah in lagu dadaalo xagga naasnuujinta. marxaladda koowaad hooyada inta badan qaybta ANC-ga marka lagu jiro in lagu dhiirigeliyo, waliba hooyooyinka cusub ee aan hore u dhalin lagu dhiirigeliyo. sidoo kale waxaan ku dhiirigelin lahaa shaqaalaha caafimaadka gaar ahaan qolada midwife-ta markii hooyadu umusho lafteeda in lagu dabagalo 24 bilood oo la dhaho maalmaha 1000 maalmood ee ilmahaas noloshiisu ay muhiimka tahay in la safeef gareeyo ama la badbaadiyo. waxay nagu waajibaa inaynu waalinta ku taageerno, ku baraarujinno goob kasta iyo meel kastaynu joognaba in naasnuujinta waalidka. marka waxa weeyaan naasnuujinta waxa ugu muhiimsan 3 shay. ilmuhu markuu dhasho 30 miriyo u horeeya waa in caanaha laga dambarka la siiyaa. talabaad waa in 6 bilood ee hore aan waxba lagu darin ee naaska qura ilmaha la siiyaa. waxa weeyaan inta saddexaad waa in ilmaha ugu yaraan 2 sano naaska la nuujiyaa. markuu bisha 7 galo waa in abaabinta loo bilaabaa, kadibna 2 sannadood naaska la sii nuujiyaa. ta kale waxa weeyaan
faa'iidada ku jirta naasnuujinta waxa weeyaan 4 shay carruurta faa'iido ay u leedahay qoyskana faa'iido ay u leedahay hooyadana faa'iido ay u leedahay qaranka ama bulshadana faa'iido ay u leedahay laakiin waxaad moodaa hooyooyinkii hore iyo hooyooyinka maanta inaana isku mid ahay runtii xagga naasnuujinta marka laga hadlayo marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala hooyooyinka dambe ee aqoonyahanka weliba ah ee wax badan runtii og diiniyan iyo maadiyanba inay ku dadaalaan biidni illaahi alkariim oo ilmahaasi si uu waalidnimadii u garto oo ixtiraamkii waalidnimadu lahaa ay maxay ahayd ay u qaataan iyo waajibkooda waxaan insha allahu tacaala rajaynayaa inaad wacyigelinta farabadisaan oo wacyigelin badan aad hooyada siiso وعبد الغني عبد الله محمد عبد الغني بافو ورك تلفزيون كرويال مقالة برعو